safiirka jamhuuriyadda Soomaaliland u fadhiya dalka China mudane Maxamed Muuse Ibrahim ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa ku yaala magaalada Beijing ee caasimadda dalka China kaasi oo kaga hadlay arrimo dhowr ay ka mid yihiin wadahadallada ay dowladda Soomaaliland ay la galayso dalka Soomaaliya. safiirka oo shirkiisa jaraa'id u ahaa mid aad u dheer ayaa waxa uu qabtay sida waxa aan doonayaa inaan maanta ka hadlo ama aan shirkan jaraa'id u qabtay waxa weeye inaan ka hadlo qodob aad iyo aad u xasaasiya oo muddadan dambe aan aad ugu arkay warbaahinta qodobkaas oo qof kasta oo reer Somaliland ahay uu ka warwarayo. qodobkani waxa uu yahay shirka wadahadallada dhawaan ka dhici doona magaalada London ee lagu hadalsiinayo Somaliland iyo Soomaaliya. sida la og yahay Soomaaliya waxay ahayd laba gobol oo midna Ingiriisku gumaysan jiray midna Talyaanigu gumaysan jiray. markii ay labada gobol xorriyadda qaateen waxa ay damceen in ay sameeyaan wixii la oran jiray Jamhuuriyadda Soomaaliya. Jamhuuriyadda Soomaaliya sidaas ay ku timid waxaana aasaasay oo ka dambeeyay midowga Soomaalidu waa gobolkii waqooyi ee Ingiriisku gumaysan jiray oo ku biiray gobolkii koonfureed ee Talyaanigu gumaysan jiray. waxaana u dhacday isku biiritaanka ama midowga Soomaalidu waxay ahayd si bilaa shuruudnimo ah oo qiiran leh oo dadka shacabka reer waqooyigu ay doonayeen in walaalahooda koonfureed ay la dhistaan dal Jamhuuriyadda Soomaaliyeed ah. weliba ma ahayn Jamhuuriyadda Soomaaliya qura in la sameeyo waxa la Soomaali weyn oo shanta gobol ee Soomaalida la isu keeno. haddaba markii ay dhacday midowgaasi oo koonfurta iyo waqooyigu ay midoobeen weliba si bilaa shuruud ay u midoobeen waxaa dhacday waa la wadoogaa. waxaa dhacday khiyaamo weyn in gobolkii koonfureed uu khiyaamay gobolkii waqooyi. waxaa dhacday dowlad kacaana oo afgami ku qabsatay wadankii dhibaato badan u geysatay shacabka reer waqooyiga ah. dhibaatadaas qofna hadda loogu celin maayo oo wuu og yahay siday dhibaatadaas ku timi. haddaba dhibaatadaa waxaa dhacay halgan 10 sannadood jiray oo jabhaddii Somali National Movement ee SNM ee jabhadda dhaqdhaqaaqa Soomaaliyeed ay doonayeen in taliskii Siyaad Barre oo dhammaan ku hayay dhibaato Soomaalida oo dhan in ay ka qaadaan talada oo ay gobolkii waqooyi dib ugu soo celiyaan madaxbannaanidiisii. jabhadda SNM la dagaalanka ay la dagaalantay Siyaad Barre waxaa dhacay dhibaato weyn oo Siyaad Barre u geystay shacabkii reer waqooyiga ah. dhibaatadaas 50,000 oo qof ku dhintay in lagu qaaso hanti bilyan dollar lagu qaasina way ku baabaa. waxaas oo dhan waxa la doonayay in himilada markii laga gaaro in markaliya Somaliland ay noqoto jamhuuriyad madax bannaan. dad baan u nafwaayay, dad baa u aagoomoobay, dumar baa u rag waayay oo ragooda ku madheen, caruur dad baa ku naafoobay. dhibaatadaas dad baa u saasimiyay. ha yeeshee markii dowladdii kacaanka meesha laga saaray ee burburtay dhammaan beelaha reer Somaliland waxa ay isku yimaadeen shirweynihii magaalada Burco lagu qabtay ee la soo noqoshada xorriyadda luntay 18 May 1990 waatii Burco shirweynu ka dhacay. dabeetana lagu dhisay dowlad ay jabhaddii SNM madax ka tahay. 2 sano kadibna waatii Boorama lagu qabtay shirkii watashiga beelaha reer Somaliland ee dowladdii inacigaal lagu dhisay. dhibaatadii dhacday waqtigaas waxaa lagu ilaaway oo la isku saamaxay waxa weeye in la helo Jamhuuriyadda Somaliland. haddaba maxaa isbedelay? dhibaatadaas oo dhan waa la ilaaway. dowladaha kala dambeeyay baa waddanka kasoo talinayay. markaas markii la soo gaadhay dowladdii Daahir Kaahin waxay dowladdii ugu horeysay ee si dimuqraadiya loogu doorto ee qofku isagoo xor u codkiisa ugu shubay. xisbiga la furay, asxaab baa tartamay, xisbiga udub ee Talyaaniga ku guuleystay. xisbiga udub 8 sano ayuu waddanka talinayay. mar kaliyana laguma arag isagoo oo fadhiya fagaare ay Soomaaliya iyo Somaliland joogaan. xisbiga udub wuxuu sameeyay arrin aad iyo aad u wanaagsan. haddaba maxaa isbedelay markii dowladda kulmiye waddanka qabsatay? dowladda kulmiye ee hadda waddanka ka talisaa markay xisbiga hayeen mucaaradka hayeen markii ay xisbiga udub ay diideen in ay ka qayb galaan shirkii ka dhacay Washington ee Soomaalida loo qabanayay
waa kii ninka hadda ah wasiirka arrimaha dibadda ee somaliland isagoo oo ah guddoomiyihii ama xogayihii arrimaha dibadda ee kulmiye la u duulay maraykanka ee ka qaybgal shirkaas dowladdii daahir yaalka ahayna udub way diiday inay ka qabto arrintaas haddaba arrintaas oo ahay khiyaamo qaran oo kulmiye sameeyey haddana waxaa la aaminsan yahay in beesha caalamku ay xisbiga u kulmiye in ay ku guulaysay dabad ka riixaysay markii uu kulmiye waddanka helay ee doorashadii ku guulaystay ee 50% weliba codadkii ku guulaystay waxaa dhacday in wasiirka arrimaha dibadda isagoo aan cidna la tashan cidna ogan kolba uu shir u dulo lama hayo shir uu qabtay oo wax faa'iidar somaliland uu ay ka soo baxay arrintaa buuq badan baa samaysmay dadku dowladdii madaxweyne Siinayo way ka aaminka baxay dowladdii Axmed Siinayo musuqmaasuq ugu baahay dhibaato dhan baa dhacday beelihii darafida sanaag iyo sool iyo buuhodlaba waa aragtaa maanta dhibaato bariga somaliland ka taagan ee dadku dhimanayaan waa arrin civil war wey waa arrin maaha maamul iyo maamul maaha waa arrin beeleed waa la ogyahay arrintaasna waa arrin aan marnaba qaban wixii aynu ka dagaalanay ee aynu siyaad bere kaga soo horjeesanay in maanta dad reer somaliland lagu sameeyo waa arrin aan la aqbali karin cid kastaaba xorba u tahay dhulkeeda in ay nabad kula noolaato dowladdii la wada samaystay haddii loo dhammaan waayo waxa dhacaysa dhibaato tan tii siyaad barre ka daran haddaba warkan iminka soo baxaya ee sheegaya in shirkii london 23 bishii saddexaad ka dhacay london ka dhacay ee soomaalida waa tii somaliland ka qayb gashay shirkaas guux weyn oo siyaasadeed buu dadka iyo dowladda iyo asxaabta ku sameeyey nasiib wanaag dowladdu waxa ay samaysay in ay la tashatay dhammaan xubnihii huseeyo o dhan baarlamaankii guurtidii dadkii rayidka ahaa madax dhaqameedyadii asxaabta kale ururada iminka soo baxay xisbiyadii hore u jiray arrintaas shir qadan baa laga yeeshay nasiib wanaag arrintaasi way hirgashay in wafdi heer qarana loo diro london wafdigaas guushii ugu weyneed ee ay kala yimaadeen london waxay ahayd iyagoo oo sheegay in madaxweyne ku khudbadeeyey shirka london kana sheegay qadiyada somaliland qodob ka mida qodobadii shirkaa lagu heshiiyey ayaa wuxuu ahaa in somaliland soomaaliya uu ka wada hadlaan aayahooda mustaqbalka haddaba wada hadalaase u dhacayaan dowladda soomaaliya si diyaar ma u tahay in ay la hadasho somaliland maxayse kula hadlaysaa ma iyagoo maamul goboleed soomaaliya ka tirsan ma iyagoo dallamida ah maxay iyagoo ah bay eegoshay dowladda t f g da wayn ogday t f g da waxa u haray 4 bilood xilligii mandatekooda beesha caalamkuna way u sheegtay inaan maalin loogu dari doonin sheektarkii dowladdiisa haddaba somaliland arrintaa iyadoo ka faa'iidaysanaysa maxay bay rabtaa inay kala hadasho soomaaliya ma sidii soomaaliya dib lagu midoobi lahaa ma sidii laba dal oo walaaloo jaara loo noolan lahaa maxay bay markaa somaliland iyadu diyaarsatay teeda kaleeto waxaa la yaab ah ka hor iyadoo soomaaliya guddi u magacaabin wada hadallada in ay somaliland iyagu guddi u saaraan guddida loo saarayaa wuxuu noqday 5 wasiir oo dalkaba weligoo intii ay jireen 2 sanadood wax ka badan aan ka qaban xilli horena aan soo qaban marka laga reebo xildhibaannimo oo wasiirka arrimaha guud soo qabtay wasiirka beeraha wasiirka arrimaha dibadda wasiirka arrimaha gudaha wasiirka cadaaladda iyo wasiirka hawlaha guud 5 nin ma matali karaan masiirka qaranka jamhuuriyadda somaliland haddaba maxay baa la gudboon dadweynaha dowladda asxaabta iyo cid kastoo arrintan tusayso waxaa anigu aan ku talinayaa oo arrintaas aan ku talinayaa in ay noqoto arrin dhammaan xisbiyada golaha guurta wakiilada culimadiinta ganacsatada aqoon-yahanada ardayda jaamacadaha in loo yeedho oo la weydiiyo ray dhibaatadii soomaaliya ay somaliland gaadhsiisay ee 80aadkii soomaaliya magdhow ma ka bixinaysaa dadkii dhintay magdhow ka bixinaysaa mise arrintaa weyn ilownaa ma ilaawi karno dad baa u dhintay shuhaadadii meeye dhiigii shuhaadada dadkii curyaamaha weli nool waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland madaxweyne axmed siinaye ka codsanaya in uu arrintaa ka noqdo oo arrintaa arrin qaran noqoto oo laga wada hadlo dhibaatadaas 60kii ka daran ayaa nagu dhici doonta 5 wasiir ma matali kariyaan qaranka ma matali kariyaan masiirka ummadda
ما بقرنيان هيستوري كوطن كان يجو دباتيك مقرنيان waxaan ka codsan lahaa madaxweynaha in uu guddida loo saarayo wadahadalada Soomaaliya erge uga dhigo raggii waddankan usoo halgamay sida Axmed Miro oo kale oo weli nool oo ahaa jabhadda Eastern ka tirsanaa professor jaamacada in laga daro cilmiinta lagu daro asxaabta lagu daro laga wada hadlo dhibaatada dhowtuna dhici doonta mid aan aqbali karna maaha qof kastana arinta u qurqursami mayso madaxweyne waddanka dhibaato badan ku jira musuqmaasuq baa baahay maamul xumo baahday dagaalo suuqyo waddanka socda doorashooyin baa jira ma fiicna in lagu degdo wadaha Soomaaliya la galo waqti kasta waa la gali karayaa sanadka dambe la gali karayaa dawladda ma la gali karta wadahadalada goorma dhacayaan xagee ka dhacayaan yaa xaadinaya maxaa laga hadlayaa ajidaha laga hadlay la garanayo ilaa imika madaxweyne arintaas waxaan ku oran lahaa inay noqoto arin miisaankeeda leh oo sal balaaran oo dhammaan cid kasta oo khusaysa ay ka wada shaqeynayso oo madaxweyne waxaan ugu dambeyn usoo jeedinayaa dhammaan shacabweynaha reer Somaliland inaanay marnaba ka niyad jabin ilaahay iyo qadarkiisa ilaahay baa Somaliland ilaashanaya Somalilandna way noolaanaysaa weligeedna way nooleen waxaan oran lahaa inagu isku duubni ma lagu noqon karaa qaran tafraaruq iyo ma inoo fiicna dawladana waa in la hadla dawladda inaga dooranay inaga codeynay dawladdu yaa keenay dawladda inaga keenay dawladdu cad ku timi waxaynan rabin dawlad ma samayn karto taas waa in la ogaadaa dawladdana waa inay dawladdu ogaato cidda meeshan keentay inaan tahay shacabka reer Somaliland amislaash lamku mucaaradka ahaa anaga codeynay imika ugu dambeyn waxaan usoo jeedinayaa dawladda in ay laasho guddida ay magacaado oo in arrinta salbala laga dhigo oo dhammaan qaybaha bulshada laga qayb geliyo waxaan usoo jeedinayaa in arrintaas aan lagu degdegin degdegu waa kii lixdankiina hoday waa kii qeyradiina hoday imikana in qeyradaa mid lamid ina hodo ma socon karto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ودرارتي لتلاقي لدي على كيني للانكينو نبض كسادي ودرارتي لتلاقي لدي على كيني للانكينو نبض كسادي وما هدافها وانا قدسها وحيد عيبا بكيس عياها والطريقة دوتها اللولو وما هدافها وانا قدسها وحيد عيبا بكيس عياها والطريقة دوتها اللولو